Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan aqoyaad youtube aan salaamay casharkan wuxuu ku saabsan yahay sidee window 10 keenan ugu tiri karnaa username kaasoo aan u baahnayn inaan aad isticmaalin haddii user badan computerka ku jiro waxaa laga yaabaa inaan rabin marka sida iskaga tagleed usernamekaaga window 10ka sidaas kaga tartid waxaa leedahay start menu ayaad leedahay window 10kaaga kadibna settingka ayaad tegaysaa kadib waxaad tegaysaa accountka ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad tegaysaa family and others ayaad ku dhufane kadibna usernameka ayaa kusoo baxay dhabalka ayaad siinaysaa kadibna remove ayaa leedahay kadib waxaad leedahay delete account and data ayaad ku dhufanaysaa kadibna sidaas ayaa lagaaga tiri usernamekii marka waxay ku sahlan tahay inaad ka tagtid usernameka si sahla right click ku dhehe kadibna console baan ka dooro start menu-gaaga kadibna user ayaa tegaysaa kadibna haddana user ayaa tegaysaa kadib waxaad leedahay manage ku dhufanaysaa kadibna usernameki sidaas ayuu kaaga tirmi markay ku sahlan tahay insha allah midna karim inaad usernameka si sahlan ku tirtid ka faa'iidaysi wanaagsan waxay aqoon wanaagga u faa'iideeyay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu wajazaakum allahu khayran